aan dhahno openings okay openings door meter square plus window area يعني meter square waxaan ka wada area oo inaan isku soo geeyno maxay noqonaysaa doorku dhererkiisu waxaa 2.5 lagu dhuftay 1 mitir oo widthgiisa loo geeyay windowska oo maxaan dhahay dhererkeedu uu yahay 1.6 lagu dhuftay 1 mitir oo widthgeeda openings maxay ka dhigan yihiin 2.5 times 1 2.5 okay plus 1.6 times 1 waa 1.6 openings keenu muxuu yahay okay 1 uge waa 3 mitir iyo 5 3 mitir iyo 5 cm 6 uge okay 4.1 meter square marka kaareega yani albaabkeenu maxaan ahay albaabadeenii daaqadeena waa intaas marka maxay ka dhigan tahay area of a wall actual area of wall maxay ka dhigan tahay area of wall minus area of openings okay maxaa area of wall noo soo baxay 18 meter square marka maxaad ka jaraysaa 4.1 meter square oo ka dhigan actual area da wallkaaga maxay noqonaysaa 4 ka jar waa 14 0.1 ka jar waa 13.9 meter square marka tirada xagga galaysa si aad u soo saarato maxaad u baahan tahay number of HCB maxaa lagu heli jiray waa naqaanaa number of HCB maxaa lagu heli jiray waa area of wallka saxda loo qaybiyay area of HCB with joints marka area of maxaan dhahay gidaarka maxaan sanaa numberkii maxaa waa 13.9 meter square loo qaybiyay 0.0924 meter square oo ahayd the area HCB ga ay ku jiraan labadii sentiye jointska marka maxay noqonaysaa calculator-kaaga la soo bax calculate garay maxaa ku soo baxay numberkii 150.43 oo approximately ah 151 ayaa maxaa ka soo baxay 150 point something marka maxay approximately tahay 111 xabo ayaa xagga inoo soo baxay marka si aan lacagteedii u estimate garan maxaan u baahannahay wastage inaan ku dhufano wastage maxaan yiri 5% ayaan isum garanaa oo ka dhigan 1.05 ayaan ku darsanaa xagga tahay tirada saxda numberku muxuu yahay waa 151 lagu dhuftay 1.05 xagga dhigan marka 151 lagu dhuftay 151 okay 151 lagu dhuftay 1.05 oo ka dhigan actually 158.55 approximately 159 xabo waxay tahay maxaad karaysaa inaad 0.05 ama 5% inta ku dhufato tirada ku soo baxda aad u geysato 151 si aad lacagta u estimate garan waxay tahay tirada ku soo baxay inaad halkii biis inta uu lacagtiisa yahay maxaan assume garanay 6 bir adoo waxa ku soo baxday 159 pieces lacagtooda x maxay noqonaysaa okay lacagtooda maxay noqonaysaa 159 lagu dhuftay 6 bir maxay intaay 4000 costiga maxay leeyahay 4000 174 bir ayaa kaaga baxaysa idaarkaas wirsigiisu yahay 6 mitir dhererkiisuna 3 mitir yahay daaqadaha iyo albaabada ku jiraan sidaas si lamid ah kana dad ka shaqeynaysa gidaarka ka soo horjeeda muxuu noqonayaa waa 6 lagu dhuftay 3 mitir oo dhererkiisa dibadna area jointska la socday baad u qaybin tirada ku soo baxda ayaa xaga ka soo saaran marka anigu inta boos qabtaan ka soo wada shaqeynaya adiguna ka soo shaqeey wax kale sameyn maysid 5 mitir ku dhufa 3 mitir xagan openings ma laha dibadna u qaybi maxaan ahay HCB ga area-diisi jointiga la socday kan marka kaas aan imika ka soo shaqeyn iyo labadan iska soo horjeeda haddaad mid ka shaqeyso times 2 bay noqonayaan kaasina isagu 18 kaareegiisa already waan haysanaa 18 meter square openings ma laha waan u qaybinaa marka boos baan qabanaya ka soo shaqeey okay adigana waxaan maray inaad soo saaratay kiigood horta isagu muxuu noo soo baxay 159 xabo maxaan sameynay area-diisi baan ka shaqeynay deductionskii baan ka jarnay wastage baan ku dhufanay lacagtii baan ku dhufanay imika access b oo kale waa kan wuxuu leeyahay access b muxuu ahaa aan tagna drawing-geeni fiiri okay access b waa kan waa kii ka soo horjeeday ka actually kan iyo kan waa isku kaare ama isku meter square 6 times 3 ba noqon laakiin kan muxuu ku doonaa kan de wuxuu lahaa openings meelo banbanaan marka kan uu ka tiro badan doonaa yani uu ka jaajuur badan doonaa aan eegno qaabkan soo calculate garayna adna soo calculate garaysan filayaa maxaan sameeyay markii area-dii baan ka shaqeeyay 6 baan maxaan ku dhuftay 6
waxaan ku dhuftay qalinka xasbo soo bax 6 baan ku dhuftay oo warsigiisa dhararkii guriga 8 meter square baa soo baxay idan numberka saa soo helo area of wall aynu qaybi area of HCB oo jointiga ku jiro waxaan soo baxay 194 something way soo baxay approximately waxa soo qaatay 195 san lacagtiisii uga shaqeeyay waxay noqonaysaa wastage key additional maxaan dhahay factor keeni waan ku dhufanaa 1.05 195 maxaan soo baxay 204 adu point something iyadna 205 xabay noqotay okay approximately costiga saan uga shaqeyno xabadii 6 bir bay suuqa ka taagnay 205 xabana soo saarnay iyadna isku dhufo lacagta ku soo baxday حاجه بحاجه baxnay labadii gidaar iska soo jeeday midna albaabada laha midna la albaabadii daaqadaha marka access 1 iyo 2 access 1 iyo 2 hadda soo eegno okay waa kaas iyo ka xaga dhintay waa warsiga waa 5 mitir dharka gurigana kan bay lamid yihiin waa 3 mitir xasabanna marka 5 ma ku dhufana 3 maxay soo bix 15 meter square deeynaa number of HCB saan soo helo waa 5 loo qaybay inta 162.30 ba soo baxay nina laba gidaar baa aynu iska soo jeedaa idan access 1 iyo access 2 baa ahay idan waxa soo baxay 304 wastage kii baan assume gareynay maxaan factor keeni ku dhufanay 0.5 yani 5% idan maxaan soo baxay 340 Allah istaan intaas costigiina saan xisaabina waxay noqonaysaa xabada HCB ga oo 6 bir idan tiradii ku soo baxay lacagta ku dhufo 8863 bir baa soo baxay HCB total number kiisaan si guud wadar imika xabad gidaar walba lacagtiisa ma ka soo shaqeynay laakiin ma xabad rabtaa in markaba tirada ogaato oo مثلا maxaan dhahay client-iga oo kale tirada ii sheeg maxaad sameyn access bad isku soo geey access code waxaan soo baxay 159 kii labaad waxaan soo baxay 204 waa access B kii saddexaadna waa kii imika ka shaqeynay iskugu jiray access 1 iyo 2 ee 5 mitir ahaa dharkiisuna 3 mitir intaas aan soo baxay total muxuu noqonayaa waa 704 xabo 704 ta dad ku dhufato 6 lacagta guud ee kaaga baxaysa ayuu ku soo saari saas lamida lacagta mid walba access walba soo saartay dad isku geyso iyo tan waxa ku soo baxa isku mid bay noqonayaan inta markaan faano qaabkii parameterkan imika uga shaqeynaa